السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفر شي باكو بنان إن أدهاس كاد كو قراعي كرتو. أفر شيء باكو بنان إسلام دنا تكو قرع دول أفر شيء والله جفي تيلي كروان أفرت محاكم ده تركو زينتي قبل الزينة ذي كتبت قبل ما بيسقط حنا صو وعم باس السئ هيه قبل محا جراوي سيكوسو أنا محا كان كوسو جورسناي محا كارني إيش يعني قلبو قارم سدحوا كل الجني بلتاو قاعدة صدقوا كل جين هاي بالشيخ واي رسولك عليه الصلاة والسلام ويليس لما الشيقين أو هاسس كي سمت كمدا وقراعي ويليس لما الشيقين حتى أصحابتي حتى لما الشيقين waxa la yeerinayo maadaama ay kitaab yihiin kitaabkuna uu yahay kitaabkii Allah oo diini ay tahay diinta siday tahay in loo faafiyaa fiican marka afar shay baa kuu bannaan islaantaada inaad ku garaacdo afar shay haye kow tan koowaad waa haynaa haye sheekh haye tan labaad حرام بك إلا دايو محا هول حم بيك أنت واكو لبا وحاويان لبا وحاوي ترك الإجابة الجيبي دي بيك تكتب إذا أراد الجماع مركو دونا ننكر ويتيت لكن شرطي وهي ظاهرة قبل ما هي ظاهرتها كالبوير وأساسي استتري وصوبه جاي الكوسو قابل لبو كل جيب أيضا هكا سعطو سدح وحاويان تركوا صلاته wadaad kan khadkooda ka saar rabaa nin Soomaaliya joogo oo maako sheekhu ma ogtahay naagaha inay qaateen dhaqanka reer galbeedka oo islaanti maanta farqada aad taabatidba inay liiska kuu gelinayso waa la ikufsaday taas ma la socotaa dumarkii Soomaaliyeed dumarkii hore la iska dili jiray maanta waa laga tagay way ka tageen maanta sababtoo ah waxa loo keenay cashar ah ninkaaga hadduu kuleetu kugu dhigo waa ku kufsaday sharcigaasaa jiro marka casharkaaga waxay la tahay maadaama aad qurbaha joogtid maaragtay xanaagii aad reerkaa u qabtay waxaan u malaynayaa inay aniga noo meerinayso marka naag kastoo maanta Soomaaliya joogto markii farqada lagu dhigo waxay daawo u gudbinaysaa ku-xigeenka baarlamaanka ahey halkaasaa loo fadhiyaa ku degdeganina haye islaanta haddii aad u yeerato ay ku diido ul u qaado laba ku dhufo haye tan saddexaad سدح وحاويان تركوا صلاته صلاة قبل ما تكنيس قبل محا وجفتها بين اسكتر وين تكذب لو باكسيني صوب حرت كان تكون انا كو ها سدحوا كل جن كسوس عمش كو قبدي ترك الغسل عن الجنابة صلاة waa lagu garaaca waa ka yeela salaad haday dukun weyso maqaarkeeda la fiiqaya taas waa ka yeela laakiin haday ku diido garaac hadaa u yeerto garaac sheekhow ma saliid ma noo diyaarinaysaa macnaha saliidina nagu shibi lahaa aad diyaarisimiya hadda ana waxaa gacanta kuma haya laakiin dadka saliidaha gacanta guryahooda saliid u taalo ha u diyaar garoobeen aha saliid iyo midi qasir hadda kor aan soo arkeen maartay waa soo socotaa waa idin sheegi doona tan afaraad كو قبدي ترك الغسل
ترك الغسل عن الجنابة قبل ما يبقى بيسني يسبو ناكر محاجرة عليها نقول قايلين سرقان تسوق هذا هذا وقو بالله فتاو قاعدة شككم الجنوب وإذا شيء يعني لا كو والحيض بمنزلة الصلاة بويا الله سكر تنافر يودي عادي كبتي واتسي وقلت سد عفرشان سميسو ul soo qaado garaac waxaa bilaay hadishii horta iyadoo janaabo qabtaha meesha dhige janaabi qabtaa ma isdaahiriso sheekhow labada dambe waa kaa qaadanay laakiin labada hore ninkii ku dhaqan maanta Soomaaliya hadduu joogo saliid baa u diyaara saliid wallaahi oo billaahi oo tallaahi diirkay ka ridayaan ahey ha loo diyaar garoowo saliid agar maantay dumarkii hore maaha faraqaada leh haddaa ku dhegto agteeda waxaad ka tahay inaad kufsatay waa la kufsaa lagu leeyahay meesha gallada la iska rabaa ya qisiya soo socoto aan soo arkay islaamaha hadday mar masiiraan oo maaragtay ay koo maseer qaado ya wax kasta ay gacanta ku hayso kaa la ximayso ay ninka fiir waa riwaayad horta tan waa riwaayad laakiin dhab haddii dhab laga dhigo ilaahay aan ku dhaartay xitaa intaa koob biyo kacbata laguu simimaaday nafta dalag baa lagaaga siinaya riwaayadan fiiriyaadi masiirka naagaha ma halkaas u gaaray ayaa adigin waxaa rabtaa maaragtay dhinac hadday fiirso inaad soo jeediso haye هيا حاجي ما انت فرحسن تهاي حقيقة مساجد هذا كيف بدأ؟ المساجد كسان وجمال فرح تشرين من ناقر قرحهم بصلاة بلابي. ها. هذا الناقة هنا يرد بود ما قد أفتح. ورناي كذا بهاري ما يسوى وهو يجاجي وهار كاجي. ساس تاوسي جستو. صدق يتوم. قدام ده ديارس. قدام ديارنا يا حدها فروت كواتشر يا بريس كوافين كوكشرا هيل كواديارسين يا واحد بوانك. ما حتى أنا هني هذه أفرد لا تكسر حدان هردو حدان سوتش حدان صلاة كإمام حدان مساجد كإمام من ناق بدر دبك عيسى ما له محاضرة ماشي محاضرة سعودي شيخ في عمبة شوقي ما شاء الله ولقوا حال الشيء مساجد كلاجيري إن آخر إن إيجرتو أحور العين سك حور العين كلا دونك ولي شوفتها ما غير ما يحكي هذا نك حاسكي ماشي من السعودية مش دمر ما لقى شيء كسنة نك حاسكي سباري oo maxaan ku leeyahay adduunyada nin fiican ku ah aakhira markuu tago in dhowr intaas oo xural cayna la siinayo oo naaga ma adigoo ila nool duunka jooga anagu ilmo korsanayno kambiyaala aan ku jirnaa aakhira dumar sii balansanaysa ana ma balansanin oo wax diintan lagu sheegay way dhiman maysida ka sheekee waliga asaas u taagnaanaysa 200 sanad ku gaaraysa way dhiman maysid maxaa u dhimanaysaa waxa dhimanaysa xural cayn darteed midida iga leex oo isdaldal marka hadda adaaba hadda idiriyo midida iga leex xabiib maxaa ku dhacay shaydaanka iska waxa balan yaxdigu haddaad dhimato xataa inaana iska ka soo dabadilo waay ma jirto maalintaad dhimato maalinta ku xigtaana waa la duugaya aakhirana saana isku daba taagnaanayna xural cayn adduunka khaatika ana xural cayn ku noqonaay maxaa xural cayn kala kala fiiri ana xural cayn ku aakhiriya adduunka xural cayn taad waa aniga xural caynimada raali la iska ahaado وأدونك الرال لسكها هذا آخر الوجود شو كرا أدا أدونك هبين كرت أنت مالني كرت أنت وحبر عليها أدونك يقول كذا آخر يا حور العين نعم تشغل إلا تجلس وشقك مورس هبا وشق جنة كلمة نعم صلاة دي من كوكر لا فرح تكسر ناق وكرت أنت بعد هذا إدا ناقحانو ما جنة كلية جوا مساعدة كانوا كشران إيش خوف على شوية ناق سنة جنة وين عذاب كان قلنا أشهد أن لا إله إلا الله وإنا إليه راجعون عذاب كل كلمة هذا والله إنا لك رئيس وين رئيس قف على جو ناقص السنة يقول
الله هي هذا سوتش هذا صلاة كإمام هذا مساجد كإمام من ناق بدر دبك عيسى ما لهم محاضرة ماشي محاضرة سعودي شيخ في عم بتشوفي ما شاء الله ولو هذا الشيء مساجد كلغيري إن آخره إن إيجرتو حور العين سك مع حور العين كان دونك ولي شوفتاي مع غيري ما يحكي هذا نك حاسكي ماشي من السعودية مش دمر بالغ شاكيسانية نك حاسكي سباري oo maxaan ku leeyahay adduunyada nin fiican ku ah aakhira markuu tago in dhowr intaas oo xural cayna la siinayo oo naaga ma adigoo ila nool duunka jooga anagu ilmo korsanayno kambiyaala aan ku jirnaad aakhira dumar sii balansanaysa ana ma balansanin wax diintan lagu sheego way dhiman maysida ka sheekee weligaa saasa u taagnaanaysa 200 oo sanad ku gaaraysa way dhiman maysid maxaa u dhimanaysaa waxaa dhimanaysa xural cayn darteed midida iga leex oo isdaldal marka hadda adaaba hadda idriyo midida iga leex waxaa ballan yaxdiigu ah hadda maseerka meesha ka gaareen waa kuwii rasuulka calayhi salaatu wassalaam kamada guryihiisa qayb kamada uu ka soo cunay xitaa xaar waxay gaarsiin inay nacsiiyaan meeshii ay ka gaareen maseer sheekh umul waa kana نبي صلوات ربي وسلام على حديث صحيح البخاري يقول يلا رسولك صلى الله عليه وسلم زينب حاسكيس زينب بنت جحش وتضبط سمكركود اللوغا سو غوريي حاسكيسا ayaa waxay siin jirtay malab maalin walba intuu soo maro iyo gurigeeda malab ka soo cuni jiray dumarkii kala ka war helay Aisha iyo Hafsa ayagu marka malab ay nabiga siiyaan ma hayaan malabka Zaynab ay siinaysana waa laga masayray waxa la rabaa marka malabka sidii nabiga looga goyn lahaa oo loogu qoonsan lahaa ayay dumarka la isla qabo haday midi ninka u roonaato ta kale uga roonaato waxay ka baqayaan inuu ninkii xagga u bato oo waadada nafta bini aadamku meeshii u roonbay aadi Soomaalidu waxay naan durwaaga kada ninkii yiraahdo buu dhankiisa isu buusaa واساس يعني waxa weey naftu meel u roon bay rabtaa waxay marka ku tashadeen inay nabiga ka gooyaan malabka uu guriga Zaynab ka cabay yani ka cunayo Hafsa iyo Aisha waxa la yiri waxaad samaysaa markuu nabigu ku yimaado waxaad ku tiraahdaa nabiga Ilaahayow wax qadmuun ba ka soo urahaye ma xabagta magaafiir leeyda ee geedka curfudka la yiraahdo ka baxda ee qarmuun maxabagtaasaad cuntay adiga markuu guriga kugu yimaado Xafsay sidaa ku dheh anigana markuu ii yimaado saasan ku dheh oo nabiga wax ka soo uray muxuu wax qarmuun ba ka soo uraye ma geedka xabagtiisu qarmuunayd baad cuntay aniguna saasan ku dheh nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa la degayay iyo hawshan oo dhan kama warhayo salawaatu rabbi wasallam alayhi adhow Aisha u soo galay Aisha waxay ku tiri rasuulka Ilaahay ur laga fiican yahay baa ii urhaye ma geedka xabagtiisa cuntay bit nabiguna wuu nacbaa sidiisaba qarmuunka oo dhan wuu nacbaa udgoonku nabigu aad u jeclaa salawaatu rabbi wasallam alayhi waxyaaba udgoonbuna aad u isticmaali jiray markaas nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam maya malab aan guriga Zaynab ka cunay baan u malaynayaa xabagtiisa inay shinidii samaysay geedka xabagtiisa iyo caleentiisa inay soo deeqda baan u malaynaa Zaynab gurigeeda malabkan ka soo cunay baan u malaynayaa geedka qarmuun inay shinidii ka samaysay saas ay ilata shibay ka tiri Aisha waa ka tago hadana Xafsa u tagay Xafsana sidii oo kale ku tiri markaasuu nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam malabkaas aan u malay in lagu jire laakiin waxaad ogaataan dib dambe u isticmaal ma xaraam buu iga yahay ilaahi baa wuxuu soo dejiyay subhanahu wa ta'ala ya ayyuha an-nabiyyu لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله عنانت النبي صلى الله عليه وسلم وح إلهي كو حلالي ما حد يساق حرميس أديقو حاسسك كورا اللي قلنا يالي وحال قدام بيسي دارت قابكو وقبح لهذا اللوش شيء وحال قدام بيسي لبضي الدمر كهذا الله عنانتي وحفصي عائشة با الله سبحانه وتعالى عنان أدقو سوچي دي
in tatuubaa ila allah faqad saqad quluubukuma soo ma jeed haddii aydan soo noqonin qalbigiinnu waa leexday baa layidhi faqad saqad quluubukuma haddii aad nebiga ilaahay isu kaashateen waxaad ogaataan nebiga ilaahay waxaa la jira alle iyo malaa'igtiisa iyo mu'miniinta saalixiintoodaa la jira leh markaasaa waxaa la yidhi haddana hadduu idin furo nebi moxamed kuwa idinka fiican baa laydinku beddeli oo gabdho iyo garoob isugu jira meesha lagaga soo hadhay sidii loo eryahayey baa caaisha iyo xabsa wixii loogaa baa lagu sameeyey laakiin yaa ku sameeyey rabbi baa ku sameeyey subxaana wa tacaala canaan adag baa loo soo jeediyey laakiin nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh arrinkaa ay ku sameeyeen adiga hadday xaaskaaga ku dhihi lahayd war waxbaa kaa soo urahaya muxuu yahy maxaad ku samayn lahayd na adigaa urahayaad dhihi lahayd soo ma xaalad adag baa meesha ka abuurmi lahayd maxay tahay urkiiyo qarhbuunkaad igu sheegaysa dulqaad ma lihin laakiin nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh isagoo dumarkiisii ay waxyaabahaas samaynayaan ayuu isaga dulqaadanaya nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh bulshada Soomaaliyeed mase ummadda Soomaaliyeed xilliga hadda aan ku jirno xilligii maartay wax kasta la samaysan jiray mase qof kasto qoyskiisa si uu dhaqmi jiray maanta way ka duwan tahay 20% markii la yiraahdo sababtoo ah dumarkeeni muslimiinta ahaa maanta qaynuun kale raaceen xeerarka hadda la dejiyay cid kasta way ogtahay way la socotaa meesha masiir baa jiro masiirkana waa tan hadda maartay sheekhana uu sheegay rasuulka kaleey salaatu wasalaam xaasiskiis ayaa masiiray masiirka waa wax jira laakiin tii hore oo wadaadka aan ka dhageysanay oo ahayd xaaskaaga waa la dili karaa ma jirto meel diinta ay ugu jirto rasuulkana lagama haayo asxaabtiisana lagama haayo sababtoo ah rasuulka waxaa laga sheegay xaasisiisa mid kamida inuu mar gooc uu garabkiisu ku haystay inuu ku dhuftay at least hadiiskaas inuu saxaya in kalena ma ogin laakiin kaas unbaa mar la sheegay laakiin haaskii nabiga waa uu garaaci jiray waa uu dili jiray lama hayo umar lagama hayo cali lagama hayo cuthmaan lagama hayo saxaabadii waaweynaa dhan lagama hayo qisada in sheega marka dhulkan Soomaaliyeed meel kamid ah ayaa nin xaaskiisa habeen isku dhaceen qisas aan goobjoog aan u ahaa habeen ba isku dhaceen habeenkii markay isku dhaceen iyadoo maartay raali gelin iyo ninkii islaanta leeyahay iyo ninkii maadaama ninkii islaantiisa uu garaacay uu dilay war islaanta maxaa u dishay iyo buug markuu meesha ka dhacay islaanta iyadoo dilin iska aamustay gurigeeda iska joogtay ninkan intuu go'aysto qaatay iska tag habeenkii maartay waa iska dhaqaaji wuxuu yimid xilli galabkii habeenkii waa soo dhahay maalinkii ku xigay galabkeed uu yimid xilli maartay 12 saac kale buu imaaday markuu imaaday ayuu ugu yimid iyadoo dabka kor fadhiso shaha karinayso uu yimid wax salaan iyo waxba maartay ma dhihin soo socday salli mar hore ay diyaarisay oo maartay maash u dhigtay asiga loo dhigay bay iska fadhiistay markuu yimid meeshuu iska fadhiistay islaantii wixii halay la garaacay qof iidiba ma ahayn wixii maskaxda way ka baxeen oo ninkii bay tir ii waran saa tahay ma fiican tahay maxaa halay hagaad aaday iyo ninkaas hadal asiga kaftan u yiri laakiin ayadii isla markiiba maskaxda ka galay baa jiri markii ay ku tiri halay hagee aaday iyo maartay maxaa kugu dhacay ay wuxuu ku yiri islaanteedii kala aaday asiga kaftan bay ka aad laakiin ayad isla markiiba maskaxda u qabatay daqiiqadiiba waa isku bedeshay antuu weyse qaatay u siino salaad buu iska xirtay
weliba salaad sunna ay ahayd. markii uu ku yiri islaanteedii kala aaday, gabadhii way laabatay, jikaday ku laabatay. markuu weyse qaatay uu istaagay, uu soo rakcadii u dhamaystay, uu rukuucay, sujuud markuu wajiga saar dhulku u dhigay, jalmadii oo dabka saarneed shax lagu karinayay, sokorteeda, biyaheeda, wax kasta ku jiraan, oo in lacaba keliya u dhiman tahay, aantay dhegta qabatay, asigoo sujuudsan ay waxay ka bilaabaday halkaa baraday ka bilaawday biyihii ilaa iyo halka hal mar ay qabsata. ninka fanaanadu sitay, fanaanada markii laga bixinayay waxa soo raacay maqaarkiis dhan, wuxuu soo raacay fanaanada, waa biyo keliya iyo sokor. hadday saliid ahaan leed ka war dumarka waxaan ula jeedaa dumarka boqolkiiba 70 waa dadka ugu qalbi jilicsan. dumarkan waxay u necab yihiin waa lagula guursaday iyo maartay waan guursaday way necab yihiin. ninkaasi asiga kaftan bay ka ahayd, laakiin ayada waxba fikir ma gelin, isla markiiba sujuud ay ku gaaday. saasuu ninkaasi maartay ku xalaagsamay. waxtaa markii dambe hadda maartay gabadhii meeshaas iyadoo weliba 6 cunug haysato, halkaas lagu furay, caruurtii laga reebtay, iyada la xiray. dumarka way jilicsan yihiin boqolkiiba boqol, taas waa hubaal. laakiin waxa ka sii daran dumarka waxaa la yiri feer galoocan baa laga abuuray. dumarka anta badan waxooda waa in la sasabo, wax loo sheego, laakiin wixii diinta ka soo horjeeda haddii lagu arko waa la jihaadiya. taas waa qasab waay taas. iyo maartay haddii gogasha loogu yeero imaan weyso, taasna waa mid kale, iyadana waa la jihaadi. laakiin maanta xeer waxaa la soo dejiyey, waxaa la yiri islaantaada haddii aad faraga ku dhegto waa kufsata. marka ragga Soomaaliyeed dadka maartay xaasaska qabo, wadaadkani Nairobi uu jooga u maleynaya iyo meeshuu joogo ma aqaan, laakiin xinaag uu reerkiisa u qabo in aniga noo soo waareeyay baan u maleynaya. dumarka Soomaaliyeed waa la dilay boqolkiiba, aad baa loo dhibaatay, waa la kufsaday, waxa la rabaa laga sameeyay, looma ilaalin qaynuunkii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u dejiyay, looma samayn maartay, looma ilaalin. aad baa loogu xadgudbay, aad iyo aad boqolkiiba boqol waa lagu xadgudbay. marka dumarka Soomaaliyeed halkaan aan ka salaameynaa boqolkiiba boqol, korkiina sharafaa ahaato. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.